Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Aadan Sunne hogaamiyihii mayalka adkaa ee ku noolaa magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda masallaha ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu ku biiray kooxda argagixisada ee Al-Shabaab amba kooxda ay Soomaalida inta badan u taqaan Arsenal kooxdan oo ka dagaalanta bariga Soomaaliya iyo bartamaha Soomaaliya intaba Sheekh Aadan Sunne oo la hadlay BBC waxa uu sheegay inuu tagay gobolada dhexe ee Soomaaliya isagoo halkaa geeyay ciyaalkiisii iyo xaaskiisii dhamaantood si ay ula dagaalamo amba ugu biiro kooxda sheegata mujaahidiinta ee Al-Shabaab hadalka sheekha ayuu si weyn ugu nuuxnuuxsaday inay Soomaaliland tahay meel aan cadaalad lahayn halkaasi oo ay ka jiraan diimahan ahayn diinta Islaamka oo lagu faafiyo gudaha Soomaaliland balse wasaaradda amniga gudaha Soomaaliland oo mar hore ka sii jawaabtay hadalkan ayaa sheegtay inuu saaxiibadiisa oo muddo badan ku dhex jiray ninkan oo Soomaaliland uga shakisneed uu tagay hawna maray bariga Itoobiya si loo maleynayo halkaasi oo ka galay magaalada Muqdisho agaarkeeda balse arintani waxay hadda rumowday oo aanbay si weyn u soo shaxbaaday markii uu Sheekh Aadan Sunne sheegay inuu tagay koonfurta Soomaaliya isagoo oo diiday meesha uu soo maray oo sheegin waxa uu arinta kaga jawaabay gabay iyo inuu Ilaahay soo badbaadiyay oo uu geeyo dhulkaas sidoo kale wuxuu sheegay sheekhu inuu dhex mushaaxayo 11 degmo ay xakunto kooxda Al-Shabaab amba 11 goobood ay xakunto ee ugu waaweyn bartamaha ama koonfurta Soomaaliya Sheekh Aadan Sunne oo muddooyinkii ugu dambeysay si weyn uga hadlayay amba qaacidadiisu hay'ad mayal adag oo inta badan loo malinay inuu ugu dhow yahay nimanka sida uu hadlayay marka uu tafsiirka marinayo ama marka uu jabcada khudbada galeentaba Somaliland ayaa xabsi ku riday sanadkii 2018 taasi oo muddo badan ku jiray Sheekh Aadan Sunne ugu dambeyn waxa damintay dad ay kamid yihiin caaqiladiisa ee dad Somaliland ku dhaxay magac kuwaasi oo sheegay in iyagu wardiin doonaan hawna ka fakan doonin balse hadda waxa uu baxsaday koonfurta Soomaaliya isagoo oo si cad u sheegay inuu ubadkiisa xaaskiisa iyo sidoo kale naftiisaba uu la tagay halkaas isagoo ku andacooday inuu badbaadsanayo diintiisa iyo qiyamkiisa balse lama ogo halka uu sheekhaasi ku dambeyn doono inay Mareykanku dul dhigi doonaan madaxiisa $5 milyan iyo wax la mid ah sidii Axmed Cabdi Godane oo isagana madaxiisa la dul dhigay lacag $1 milyan iyo in halkaasi ka sii talin doono dadka arintan ka faalooda ayaa sheegaya inuu sheekhu buuxinayo booskii Axmed Godane balse lama ogo inuu halkaas tagi doono inkastoo uu isagu baahiyay arintan si kastaba ahaatee sheekha ayaa la rumaysan yahay inuu in badan ka tirsanaa kooxdan isaga oo waqtiga la baadi goobayo dadkii sida weyn ugu dhawaa iyo ardaydiisa intaba saaxiibadena qiimaha badan ee barta ku xidhanow idinka arintan si ay idin la muuqataa inuu ku biiray sheekhani kooxda Al-Shabaab haddaba aragtidaadna comment-ka nogula wadaag